wax gabayada la isu tabiyo iyo wax la kala maqnaadaba gabaalkii la isu soo guuriyo la isu soo noqoy awal hore dhulkii la wada degi jiray ayaa la isaga soo dhowaaday yaradkii dhimanaa markuu soo dhameeyena qoorleex iyo cambaro waa la isu dhisay ooli iyo saygeed ayay noqdeen wixii maanse ahaa oo labada dhinac ay isu dawin jireenna waa la iska iloobay beri dambe oo cambaro ay gabyaaga carruur u leedahay ayaa niman iyada xiga oo socoto ahy reerkii ay joogtay soo tamadiyeen iyaga oo aan weli aqalladii gaadhin si ay aad ugu dhow yihiin ayay araraha iyo awradaaqaynka seedigood qoorleex isaga soo horbaxeen markii la isnibdaadiyey kadibna wuxuu u sheegay awr ka baxsatay inuu raadkeeda hayo sidaa darteedna wuxuu kula teliyey inantoodii baa joogtee inay reerka sii tagaan kuna sii sugaan inta uu ku soo noqonayo taas ayay raggii ka biyadiideen waxay jeclaan lahaayeen bal horta inuu raaco oo golihii lagu soori lahaa markii loo wanaajiyo uu awrtiisa doonto waxaa la xumaatay xidid bay ahaayeene isaga oo aan la socon reerkana ku sugnayn inay cambaro kor dhoobtaan habeenkaas gurigii qoorleex ma tageenoo ma ku hoydeen mase hadalkii seedigood intay ka dudeen bay hore u sii dhaafeen hadday ku hoydeense ma ugu soo noqday mase awrtiibuu inta waayey reerkiiba ka dhaxay waa su'aalo aanan ka jawaabi karin waxaase la hubaa galabtaas kadib raggii xididka ahaa inay ka dhex aloosantay silsilad maanse oo waageedii aad loo wadwadi jiray silsilad mararka qaarkood wax ka sheega jiribada labada dhinac loo mari jiray silsilad uu qoorleex dhinac ka ahaa dhowr seediyaashiis ahayna ay dhinaca kala ahaayeen isagana ay gamuunnada maansada ku wada ganayeen si kastaba ha ahaatee martidii xididkana ahaydii markay dhulkoodii ku noqotay si kale ayay sheekadii u warisay waxay muggii la waraystay ku warrameen in qoorleex ka dhuuntayoo si aanu u sooriyeynin markuu ogaaday inay reeraha ku jiraan uu gasada aqalka isku daday dabadeedna gabyaa iyaga ka mid ahaa oo gaani faarax la odhan jiray ayaa gebiyey qoorleex ayuu ku eedeeyey inuu ka seexday iyaga oo ah marti xidid iyo xigaale ay labadaba ahaayeen marti waxba yuuwadan u loogin bariis geedaysanna ku soorine haruub caano ahi ay ku fillaan lahaayeen wuxuu yidhi rag cadiban carraabana ahoo socod ku caatoobay oo cuurka reer maganahoo idin cashiiraystay waa ceeb cambaro daahirey cawda igu laabe xeryaha camiran nirgaha caawis laga reebay xeeryahan casuusta iyo beriis subagu ceegaago waxba yuu cusbada noo marmarin cabashkii weynaaye cadaabkii lagee muu haruub caana nagu siiyabi tixdaasi markay u tagtay qoorleex wuu ka jawaabay wuxuuse kaga jawaabay si aan cidina ka filaynin waxaa laga malaynayay inuu yidhaahdo niman yahow waad imisabidaysaanoo waad imadax goosanaysaane anigu idinkama dhuumanoo idinkama seexan dhabarkana idinma jeedin gabaygiinnu xumaan iyo kala dhimasho xidid buu tarayaaye aashiinna sidaas ulama garnaqsane waddo kale intuu jabaaxay ayuu eeddii loo haystay wuxuu dusha u saaray haweenaydii u dhaxday isagoo leh haddiiba aan anigu idin qadiyey saw cambaro idinka gabadhiinni ma ahayn may iyadu reerka wax idinka siisa oo kaydka aqalka dhexdiisa ugu qarsoon idiin soo furfurto sidaas markay yeelayso haddii ay aniga diidmo iga dareentana may ila dirirta oo wiilka yar ee ay sidato kob bannaan ii dhigto maxaad aniga igu garaysaan haddii ay iyadu idin gabtay tixdii uu sidaa ku yidhi ayaa waxaa naga soo gaaray iyaduba go'dadu